Buuraha shukulaatada ee gobolka Bohol, Philippines, waa mid ka mid ah mucjisooyinka ugu yaabka badan ee dabiiciga ah. Buurahan yaryar ee isleh ayaa xilliga xagaaga isu beddela midabka shukulaatada, taasoo dadka soo booqda ka dhigta kuwo la yaaban oo xiisaynaya. Buurahan cajiibka ah oo dhul dhan daboolaya ayaa ah meel ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee loo dalxiis tago, ayagoona leh muuqaal soo jiidasho leh oo dadka soo booqda qalbiga ka taabanaya. Ka-samayskooda cajiibka ah iyo muuqaal dabiici ah oo qof waliba uu xiisaynayo in uu arko. Waxaa la qiyaasaa in buurahani ay ka kooban yihiin in ka badan 1,200 ilaa 1,700 oo buuro yaryar ah, dhammaantoodna leh qaab isku dhow oo wareegsan ama saddex xagal u eg. Inta lagu guda jiro xilliga roobka, buurahani waxay yeeshaan cagaarka doogga, laakiin marka uu xagaagu yimaado, cagaarku waa uu engegaa oo waxa uu isu beddelaa midabka buniga ah, taasi oo sababtay in loo bixiyo magaca buuraha shukulaatada. Muuqaalkooda isku nidaamsan ayaa ah mid ka mid ah meelaha ugu naadirka ah ee lagu arki karo dunida. Marka laga eego kor, waxay u eg yihiin in dunida shukulaato weyn lagu firdhiyay. Midabkan kala guurka ah ee cagaarka ilaa buniga ah waxa uu abuurayaa muuqaal cajiib ah oo kaliya laga heli karo goobtani, waana muuqaal si dabiici ah u soo jiidanaya indhaha qof kasta, waana sababta ay u noqdeen astaan caan ah oo dalxiis. Saynisyahanadu waxay sheegeen in buurahani shukulaatada ahi ay ku samaysmeen hab dabiici ah oo socday malaayiin sano. Dhaqdhaqaaqyada dhulka hoostiisa ka dhacay, biyaha roobka oo si tartiib ah u dhalaaliyay dhagaxyadii limestone-ka ahaa jir ugu samaysmeen. Sidoo kale, hoos u dhaca biyaha badda ee agagaarka gobolka Bohol ayaa sidoo kale door ka ciyaaray. Biyaha ayaa si tartiib ah ugu milmay qaybaha sare ee dhagaxyada lime-ka, taasi oo sabab u ahayd in ay samaysmaan qaab dhismeedkan gaarka ah ee buurahani. Qaabkaasi gaarka ah ee buurahani ayaa la sheegaa in uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu yaabka badan ee dunida laga helo. Qaabka siman ee buurahani, mid walba oo leh dherer u dhexeeya 30 ilaa 50 mitir, ayaa ka dhigaya meel si gaar ah u qurux badan. Qaab dhismeedkooda ayaa ah mid aan laga helin meelo kale, taasoo sare u qaadaysa xiisaha dadka dalxiisayaasha ah. Buurahani shukulaatada ahi waa la taaban karaa, waana la oggol yahay in la fuulo. Waxaase jira meelo si gaar ah loogu sameeyay booqdayaasha si ay ugu daawadaan buuraha aragti sare. Buuraha intooda badan si toos ah looma fuuli karo si loo ilaaliyo muuqaalkooda dabiiciga ah, waxaana loo sameeyay goob loo diyaariyay dalxiisayaasha si ay ugu daawadaan buurahan quruxda badan. Waxaa sidoo kale jira safaro lug ah oo buuraha lagu maro, sawir qaadis, iyo fursado lagu barto dhaqanka dadka deegaanka. Dalxiisayaashu waxay halkaasi ka heli karaan khibrad aan la ilaawi karin oo qalbigooda farxad gelisa, waana astaan muujinaysa quruxda iyo yaabka dabiiciga ah ee dunida. Qaabkooda gaarka ah, midabkooda soo jiidashada leh, sheekooyinka xiisaha leh ee la xiriira, iyo samayskooda dabiiciga ah ayaa ka dhigaya meel uu qof walba doonayo in uu booqdo. Waa meel kaliya aan la daawan karin, balse sidoo kale dareenka qalbigaaga iyo maskaxdaada kaga tagaysa xasuus aan la hilmaami karin. Buurahani shukulaatada ee Philippines waxa ay hoy u yihiin xayawaano iyo dhir kala duwan. Xayawaanada halkaasi ku noolna waxaa ka mid ah tarsier, waa xayawaan yar oo indho waaweyn leh, kana mid ah xayawaanada ugu yar ee daanyeerka u eg. Sidoo kale waxaa ku nool shimbiro gaar ah oo qurux badan oo ku nool kaymaha ku hareeraysan buurahani. Sidoo kale, dhirtu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa buurahani, iyadoo xilliga roobka buuraha ay daboosho doog cagaaran, taasoo si tartiib tartiib ah isu beddesha midabka shukulaatada marka xagaagu uu yimaado. Waxaana loo aqoonsaday goob dhaxal qaran, taasoo micnaheedu yahay in buurahani si gaar ah loo ilaaliyo, waxaana la sameeyay xeerar adag si looga hortago waxyeellada deegaanka.
Buurahani ayaa ah halyey ku daraya qurux dabiici ah, saynis, dhaqanka, taariikhda, taasoo ka dhigaysa meel qof kasta oo dunida jooga uu rabo in uu mar booqdo. Waxaana loo adeegsadaa goob lagu duubo filimada caanka ah ee Philippines iyo barnaamijyada safarka, taasi oo sare u qaaday caanimadooda caalamiga ah. Cimilada ku hareeraysan buurahani ayaa ah mid ka duwan aagga kale ee Philippines. Waxaa jira qabow gaar ah xilliga habeenkii, taasoo ka dhigaysa goob aad xiiso u leh oo dabiici ah. Waxaana mararka qaarkood lagu tilmaamaa muuqaal dunida aan laga filaynin sababtoo ah isku ekaanshahooda iyo sida ay si habsami leh ugu fidsan yihiin aag weyn. Waxaas oo dhan waxa ay buuraha shukulaatada ka dhigayaan meel aan caadi ahayn oo leh muuqaal qurux badan, taariikh, iyo khibrad dalxiiseed oo aan la ilaawi karin. Buurahani ayaa si aad ah loo ilaaliyaa, intooda badani waxay u nugul yihiin wasakhda, dhaawaca dabiiciga ah iyo daadadka haddii si xad dhaaf ah loo fuulo ama loo isticmaalo. Taasi waa sababta ay dowladda Philippines u xadiday meelaha laga fuuli karo, iyadoo la sameeyay goobo gaar ah oo ay dalxiisayaashu kaga bogan karaan aragtida buuraha iyaga oo aan waxyeello u geysan. Si kastaba, haddii dadku ay si joogto ah u fuulaan buurahaasi oo aan laga fiirsan, waxaa dhici karta in dhismahooda dabiiciga ahi uu si tartiib tartiib ah u burburo. Ilaalinta goobaha noocani ah waxay xaqiijinaysaa in jiilasha dambe ay sidoo kale arki doonaan mucjisooyinka dabiiciga ah. Buurahani waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa mucjisada shukulaatada dabiiciga ah, taasi oo lagu tilmaamayo quruxdooda dabiiciga ah ee soo jiidashada leh iyo muuqaalka gaarka ah ee xilliga xagaaga marka ay yeeshaan midabka shukulaatada.